dayrtii baa bilaamatay diyaarinta dhulkana waa loo dareeray dalagyadii baana la abuurayaa cirkana roob weli tiska ma dhihin waa bilowga mid ka mid ah 4 xilliyadood ee uu sanadku ka kooban yahay kuwaasoo kale ah gu'a xagaaga deyrta iyo jiilaalka waxaana iminka la guda galayaa xilli beereedka deyrta oo ah mid ka mid ah xilliyada ugu muhiimsan ee sanadka beeraley badan ayaana hadda u dhaqaaqay inay diyaariyaan dhulkaasi ay abuur ugu ridaan ciidda oo dhammaadka xilli beereedkana u goostaan midhihii ay abuurteen islamarkaana jiilaalka adag ee ku xiga deyrtan kayd uga sii dhigtaan wixii ay beerteen oo ay midhahooduna ay goosteen barnaamijkan barbaarta iyo beeraha waxaan maanta ku lafaguri doonaa ciwaanka ah diyaarinta dhulka oo uu igala qaybgalayo axmed mubaarak axmed oo ah beeryaqaan barta kuliyadda beeraha ee jaamacadda zamzam diyaarinta dhulka waa mid taariikh hore soo bilaabatay oo habab iyo heerar kala duwani soo martay beri baa ula dhulka lagu qodi jiray siina xigtay fardo iyo dibiyo qalabka waxfala ku xiran yihiin in lagula qumiyo dhulka la rabo in la diyaariyo taas oo iyana maanta usoo dhiibtay in la adeegsanayo qalabkan culus ee wakhtiga kooban ku diyaarinaya dhulka axmed mubaarak axmed ayaa ka waramaya habkan casriga ah ee maanta dhulka loo diyaariyo iyo hababkii qadiimiga ahaa ee loo adeegsan jiray falitaanka ciidda diyaarinta waxaa jira qaab horumarsan oo hadda jira modern iyo qaab hore u jiro traditional qaab dhaqameed ah macnaha sida loo helo methodyadaas macnaha qaabkii traditionalka maxaa lagu sameyn jiray maxaa lagu qaban jiray waxaa la isticmaali jiray in la isticmaalo yaambo wax loo yaqaan yaamba in la isticmaalo garweyn la isticmaalaan dibiyada la isticmaalo fardaha la isticmaalo qaabkaas ayaa waxaa loo yaqaan traditional qaab hore waa dadkii hore isticmaal jiray ama hadda laga gudbay xilliyadan lama joogo xilliyadan hadda la joogo maxaa la isticmaalayaa qaab modern waxaa la isticmaalayaa mechanized waxyaabo horumarsan ah dadkii waxaa laga yaabaa meeshaan marka lagu falayo dibi wuxuu qaadanayaa maalmo مثلا in laga qaado maalmo badan inuu qaato laakiin mechanized marka la joogo wax dhan saacada lagu soo koobayaa ina waa qaab horumarsan oo qaabka ka horumarsan hadda markaan fiirinayno meelaha hadda ku soo marayna waa qaab hadda waxa ku yaala lean مثلا هذا جيت كانوا كلمشان waxa ku yaala qaab dhismeedka land preparation uu diyaarsan yahay qajaar ku yaala qajaarkan land preparation kiis waxa dhaxmar tubooyin waa qaab modern ah macnaha meeshii la siilaha faro irrigation biyo lagu soo deyn lahaa oo loo waraabin lahaa waxa la isticmaalayaa meeshiis qaabkaasi waa qaab horumarsan oo hadda loo yaqaan mechanized si haddaba wax loo beerto oo midhana loo helo si abuurka ciidda lagu ridayo loogu soo dhaweeyo deegaan ku habboon si cawska soo dhasha loo xakameeyo iyo ugu dambeyn si loo helo wax soo saar tayaysan waa in marka hore la diyaariyaa dhulka oo qalabkan wax lagu falo la geliyaa beerta Mr. Mubaarak ayaa tafaasiil badan ka bixinaya ujeedooyinka ugu muhiimsan ee laga leeyahay diyaarinta dhulka beerasho markaan ka hadlayno ama dhul diyaarin waxyaabahan ka hadlayno waa tilaabada ugu horeysa oo qofka qaadi karo waa qofka markuu yahay oo socod barad oo kale tilaabta ugu horeysa uu qaadayo ayaa Allah land preparation ama dhul diyaarintaas ciidaas si loo helo ciid leh quality iyo wax soo saar leh ahmiyada ujeedada ay leedahay maxaa marka laga leeyahay land preparation in la sameeyo ciidka texture-ka component-ga ee ka kooban tahay ciidda in la wanaajiyo sidaas waxay ku noqonaysaa ciid mid high quality ah sidoo kale in lagu soo dhaweeyo balantiga ama seedka miraha la keenayo meesha in lagu soo dhaweeyo environment asaga ku haboon ama deegaan asaga ku haboon si lagu soo dhaweeyo oo dhibaato iyo la qabsi la'aan uusan kala kulmin dhulka ahmiyada kale maxay tahay marka in la cadeeyo structure-ka ama qaab dhismeedka ay ka kooban tahay ciidda waa in iyadana la hormariyaa sidoo balantiga ugu fududaato midda kale maxay tahay marka in la soo saaro banaanka la keenaa xididada uu ka kooban yahay ama xididada dhulku ku leeyahay waxyaabaha cooska waxyaabaha dhirta aan loo baahnayn cooska ee la wada yaqaan in jiridiis dhan banaanka la keeno si uusan balantiga u dhibin ama geedka u dhibin nafaqada uusan ula qaybsano in asagana meesha laga saaraa macnaha weediska problemo badan iyo dhibaato badan ayuu wuxuu keenayaa balantiga macnaha ku ugu horeeyo wuxuu sameeyaa tartan ay wuxuu la galayaa geedkii loo baahnaa weed markaan la fiirinayn waa waxaan loo baahnayn karoobkan waa wax aan u baahnay marka wuxuu la sameeyaa tartan sunlight ku la dagaalamaya nafaqada qaadan lahaa wala dagaalamaya biyuhu dhulka qaadan lahaa wala dagaalamaya marka dhibaatooyin badan ayuu ku qabanayaa si weedkaas loo cirib tiro waa in la sameeyo land preparation wuxuu qabanayaa marka rootska ama dhulku waxyaabo nafaqada uu ka soo qaadan lahaa gebiyaantiisa banaanka loo soo saaraya waa mid aan waxba tarin ayuu noqonayaa markaas balantigana hortiisa ayuu soconaya markii intaas aan sameeyno horumaradaas aan sameeyno qaab mechanized marka waxa la filan karaa beerta inay soo saari karto productigeeda ama wax soo saarkeeda inuu noqon karo mid high quality ama sareeyo aad iyo aad u sareeyo tacabka xilli beereedkan deyrta oo hadda bilaabmaya waxaan u rajaynaynaa beeraleyda inay heli doonaan wax soo saar sare iyo suuq fiican oo ay u helaan iibka dalagyadooda barnaamijka barbaarta iyo beeraha waxaan maanta ku soo qaadanay diyaarinta dhulka iyo faa'iidooyinka ku jira axmed mubaarak axmed ayaa igala qayb galay
anigoo cabdishakuur ibraahim cabdiye ayaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya tan iyo barnaamijkan kiisa xiga intaan ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafeynaa nabadgelyo iyo tasho oo tacbo inaan beer falano aan ku baahi baxne aan isbarno inaan beer falano aan ku baahi baxne